ciyaalka xaafadda waxay ugu yeeraan wiilka shaydaanka. muuqaalkiisii aragtidiisana waa ay ka argagaxaan oo way ka baqaan. culayska miisaanka halkiisa gacan waa 2.5 kilogram. magacaygu cabdiqafaar gamaadiid oo idin leh meel walba u joogtaan soo dhawaada. tani waa qisadii wiilkii ku dhashay xanuunkii la aqoon waayey. मेरा नाम है कलीम और वही मेरा 13 साल हो रहा है. kaliim waa 13 jir ku dhashay xanuun ay dhakhaatiirtu fahmi waayeen waxa uu yahay. laakiin waqtiga uu wiilkan dhashay dhakhaatiirtu waxay u sheegeen waalidiintiisa in wiilkan ay gacmihiisu aad u waaweyn yihiin, laakiin aysan wax dhibaato ah ku keenaynin oo caadi ah tahay. xaaladdu way isbedeshay. marka kasii dambaysa gacmihiisu aad ayay usii weynaanayeen oo dhibaato weyn ayay u keentay. इसका तो जन्म का है, इसका कोई ऐसा बीमारी नहीं है, कोई नहीं पकड़ता है. qoyska uu wiilkan ka dhashay waa qoys danyar ah oo ma aysan awoodin in wiilkan isbitaal geeyaan si ay u soo ogaadaan xanuunka wiilkan hayo. lacago badan ayaa wiilkan loo aruuriyey. qalitaano ayaa wiilkan lagu sameeyey si gacmaha culayskooda looga yareeyo, laakiin wax isbedela way imaan waayeen oo gacmaha mar walba sidoodii ayay ahaayeen. था कैमरा वाला तो 8 दिन कैमरा किया, मैं सही नहीं हुआ. ऑपरेशन भी किया हुआ है पूरा. waxa uu dhibaatada ugu weyn kala kulmayaa ardada ay isku iskuulka yihiin iyo kuwa isku xaafadaha yihiin ayagoo ugu wacayo wiilka shaydaanka. laakiin wiilka waxa uu dhiirigelin ka helay adeerkiis oo gacan qabtay una sheegay in waxaan ay yihiin xanuun rabbaani ah uusan asaga gacantiisa ku keensan oo uu ku qanacsanaado. social media ayuu u furay. instagramka ayuu kusoo bandhigaa sawiradiisa iyo muuqaalo fiidiyoyaal uu iska duubay. meeshaas ayuuna ka helay dad aad u badan oo wiilkan taageeray, isagoo sheegay in qaabkan uu ku dhashay uusan wax dhibaato ah ku qabin oo ay tahay abuurka ilaahay. इंस्टाग्राम में और इंस्टाग्राम में हमको इसलिए एंजॉय होता है, मेरा फॉलोअर बढ़ता है, लाइक आता है, तो आदमी बोलता है बाबू मेहनत कर. laakiin waxaa jirta waxyaabo uusan wiilka gacmihiisa ku qabsan karin sida in dharka uu gashto iyo waxyaabo kaloo la mid ah. waxyaabahaas yareerkan waxaa ku caawisa ama ku saacidayso hooyadiis. wiilkan isagana hadda aad ayuu ugu qanacsan yahay maadaama uu garab istaag ka helay adeerkiis iyo asxaabta kaga xiran social media, kuwaasoo mar walba la wadaago positive comments ama waxyaaba asaga niyadda ugu dhisayo, una sheegaya mar walba qaabkan uu ku dhashay inay tahay qaab mucjiso ah oo rabbaani ah uusan asaga gacmihiisa ku keensan. qisadeeni aan kaga hadalnay wiilkan qaabka mucjisada ku dhashay intaas ayay noogu eg tahay. haddii aad u aragto muuqaalada aan soo gudbiyey inay yihiin muuqaalo faa'iido leh, ugu soo biir subscribe inoo dheh si ay dhiirigelin inoogu noqoto.